Shalom walaalay masiixiinta Soomaalida meeshaad joogtiin oo dhan waxaan ugu salaamayaa magaca sayidka Ciise Masiix magacayga waxaa la yiraahdaa Kawsar waxaan ay gabadh Soomaalida oo masiixeeda rabbiga nool ayaa mahad iska leh maanta waxaan xaggan ka marxaati furayaa Ciise Masiix wuxuu noloshada iigu sameeyay ii badbaadiyay siduu ii jecel yahay amen rabbigaan aaminsanay waa rabbi jacayla markaas waxaan inaanaa waa rabbi jacayla yes waa run waa rabbi jacayla jacaylku dhan waxa weeyaan jacaylka dunida kala maaha jacaylka dunida way isbedeli karaysaa maanta dad waxay sidid barina wax ma haysan karisid farxadda ama nabadda dunida soo rabbiga ku siinayo kala maaha laakiin jacaylka Ciise Masiix waa jacayl aanan dhamaanaynin ama agape love markaan masiix ahayn waan ducaysan jiray waan tukan jiray maskiid baan tagi jiray markastana waxaan ku jiray cabsi iyo walwal cabsidaana waxa weeyaan number 1 bari markaan dhinto su'aasha la weydiin doono talabaadna waxa weeyaan markaste hebel baa yiri mooyaane kama arkin ama quraanka ama wixii ama xadiiska noqdo ama wixii la sheegay waxaan soo bartay kama maqlin ilaahay waa jacayl markasta cabsi iyo mugdi iyo naar unbaan maqli jiray laakiin rabbiga nool baa mahad iska leh Bible-ka ku qoran Jeremiah chapter 1 caloosha hooyada adoo ku jira ayaan ku garanayay amen wali adoona lagu abuurin wali anoona dunida iman ayuu Ciise Masiix i garanayay inaan gabadhiisa ahay rabbiga nool ayaa mahad iska leh doorashadaana maaha si dadka u dooranayaan oo kale ama dadku waxay doortaan qof qurux badan ama qof awood leh ama qof lacag leh ama qof la yaqaano ama qof wax soo bartay laakiin Ciise Masiix doorashadiisa saas oo kale maaha rabbiga nool baa mahad iska leh anoo dambiile ayuu rabbiga Ciise Masiix doortay anoo inkaraya ayuu rabbiga Ciise Masiix doortay anoo mugdi ku jira ayuu Ciise Masiix nolosheeda iftiin ka dhigay anoo cabsoonaya rabbi ayuu nolosheeda farxad iyo ka dhigay nabad rabbiga nool baa mahad iska leh marka rabbiga aan aqbalay nolosheeda dhibaato fara badan ayay soo martay laakiin waxa ku qoran Paul markuu leeyahay Philippians chapter 4 afar waxa ku qoran markaste inaan faraxno isagoo xabsi ku jira ayuu farax haddana waxaan leeyahay inaan farxadda waxay ka timaadaa ama mugdigaad ku jirto ama dhibaatadaad ku jirtid ama temptationkaad ku jirtid maaha laakiin markaste inaad ku faraxdid rabbiga aabaha ay noloshaada ku badbaadiyay amen markaste farxaddan waxa ku siin karaya Holy Spirit markaad tahay ilmihii Ilaahay waxa immediately ku soo galay noloshaada ruuxa quduuska ayaa ku kontroolaya noloshaadii baa isbedelaysa noloshaadii farxad adan waliga arkin ayaa ka buuxsamaysa waa rabbiga farxadda faraha badan amen farxadda idilba waxa laga helaa waa Ciise Masiix dadku farxad bay doonaan dadku waxay doonaan inay nastaan dadku waxay doonaan inay wax helaan dadku waxay doonaan inay xeer gaadhaan no just believe wa inaad rumaysatid ilaaha aabaha Ciise Masiix badbaadiyaha isaga mooyaane farxad kale ma jirto laga yaabo farxad dunida inaad helisid bari way dhamaanaysaa farxadaas laakiin farxadu Ciise Masiix ku siinayo waa farxad joogitaana farxad aanan isbedelaynin waa rabbiga nool ayaa mahad iska leh temptation-kan ku jira waxyaabo fara badan ay nolosheeda soo martay oo rabtay inaan Ciise Masiix saan u inkaro wax la'aan waan soo maray gaajo waan soo maray dhar la'aan waan soo maray kaba la'aan waan soo maray waxyaabo fara badan waan soo maray laakiin dadku waxay oranayaan hadaad ku soo noqotid ama muslim noqotid ya waxaan ku samayn doonaa I'm happy waan ku faraxsanahay inaan masiix ahay mana rabo inaan dib ama gadaal inaan u noqdo ayaan ugu jawaabi jiray laga yaabaa jirkayga ama waxaan xidhanayn ama waxaan haysan ama waxaan cunaynin inayna jirin laakiin rabbiga wuxuu siiyay farxad buuxda amen nolol buuxdiisa markasna wiila jooga rabbiga waa jirkayga waxna kama baqanayo
24 hours rabbiga ciise masiix wuu ila joogaa wuuna ila jiri doonaa forever anu saas ku jira ee nolosheeda aad iyo aad ama waxyaabo fara badan waa guribaa laygu xidhay waa lay dilay gaajaan ku soo maray wax la'aan baan soo maray dadku laga yaabo markaad qurux badan tahay ama markaad wax haysatid inay dadku ku soo dhaweynayaan markaad waxba haysana inay dadku ku ignore garaynayaan laakiin waxaas oo intimidation-ka nacam waxaan ku sii turkay rumaysigayga ayaa ku sii adkaatay rabbiga nool ayaa mahad iska leh sida Paul xabsiga markuu ku jiray ayuu soo qori jiray Philippos after ku qoran ka faraad farxa haddana waxaan idin leeyahay farxa amen bal wuxuu ku jira wax farxa meel farxada maaha xabsi buu ku jiraa meel mugdi ku jiraa laakiin rabbiga nool ee farxada fadan ayaa la jira markaste marka aayadaasaan xasuustin nolosheedu waa farxad nabad baan ku kacay nabad baan ku socdaa cabsidii oo dhan ayaa rabbiga ciise masiix u qaaday shalay tol waxaan ka baqanayo dhan ayuu dhimashadiisii igaga masaxay jiribaadeed oo dhan buu wada qaaday nolosheedu oo dhan baa is wada badbaaday nolosheedu oo dhan ayaa isbedeshay rabbiga nool ayaa mahad iska leh baldaawo ayaa ku siin karaya ayaa ku soo dhaweyn karaya nolosha ayaa ku siin karaya lacag aadan noloshaada aadan ku heli karinin farxad aadan lacagtaada ku heli karinin ama blessing aanan lacagtaada ku heli karin ayuu ciise masiix anigii siiyay dhimashadeedu ayuu nolol ku bedelay amen dhimashadeedii ayuu nolol ku bedelay rabbiga nool ciise masiix ayaa mahad iska leh markaasna waan ku faraxsanahay inaan kristanahay ama masiixadahay waan u duceeyaa dadka aanan mugdiga ku jira rabbiga indhahooda u furo waxyaabo fara badan ayuu rabbigii siiyay ta ugu weyn uu siiyay waxa weeyaan dadku waxaan isnaa waxaas ma haysatid waxaas ayaa ka maqan no ka ugu weyn uu rabbiga ciise masiixna siiyay waa nolol daayima markuu ciise masiix xirtiisa la hadlayay ka yiri rabbi waa anagu wax kasta intaan iska dhaafnay ayaan adiga ku raacnay maxaad abaalmarin ugu sii doontaa wuxuu ku jawaabay dunida markaad joogtiin boqol jibaar samadana nolol aan daayima ayaan idin siiyay amen we are so blessing laga yaabaa walaalo masiixiina dhibaatooyin ku jira haddii jirtaan walaalayaalo noloshin haddii mugdi ku jirto ama noloshin haddii temptation ku jirto waxyaabo adag il rabbiga hortiisa wax ku adag ma jirto bible waxaa ku qoran Matthew 10 keena kuwa culayska nigi saarano ya kuwa culayska nigi saarano kaale baldaaw kaale uu yiri meel kale aad tagina keena aniga ana nigi nasin doona ana nigi qaadi doona ana nigi bogsiin doona meel kale ta kuma oran dhakhtarka ta kuma oran meeshka shata kuma oran ama pastorka uu ta aniga kaale ana ku nasin doona amen rabbigii shalay tolo jiray ka maanta jira iyo farina ka jira waa isku mid isma bedela ciise masiix laga yaabo walaalo far badan inaad ku jirtiin aad leediin maanta iyo rabbiga salaadeeda ma aqbalayo anu dambi baan sameeyay anu waxyaabahaasaan sameeyay no rabbigaan aaminsana waa rabbi forgiveness ku siinaya dhiigga ciise masiix ayuu shalay iyo maanta iyo forever dhiigga ciise masiix waa kuleel u dhif qalbigaaga u dhif u sheego waxa niyadaada ku jira maanta uu ku dhaqi doona u kaale guriga rabbiga ciise masiix ka laaban gadaalna uu noqon ana ku marxaati furaya waxyaabo fara badan ayaa jiray inaan gadaal u noqdo markii dhibaatay ugu dhacday waxaan rabay inaan dib u noqdo laakiin ka ila jira ayaa ka weyn ka dunida la jira amen qofka ciise masiix uu yimaado never meel lama tegayo calaamad ciise masiix baa nala jira crosskan hogaamiya amen rabbigaas anigii badbaadiya waa rabbi runa waa rabbi qaaliya nolosheeda iyo gurigeyga intaan dhimanayo dhan rabbiga ciise masiix ayaa raacaya ayaana ku dhex noolaan doona laga yaabo kuwa ereyga hadda dhageysanaya ana rabbiga ciise masiix aan garanaynin meel sare jooga ama anigiga qalbi badan
ama waxyaabo fara badan laga yaabo inaad anigii dhaantay laakiin mid baan igii sheegaya Bible-ka Acts chapter 4 waxaa ku qoran dunida hoosteeda magac kale oo lagu badbaadi karayo ma jirto only waxaa lagu badbaadi karayaa magaca sayidka Ciise Masiix amen maamaayadan waxaa ku qoran wiilkayga qalbigaaga inaad siisid rabbiga suuduu kuu daahirayo amen muujintan waxaa ku qoran waxaan taaganahay albaabka waan gargaraacayaa qofka codkayga maqla ay iga furo gurigiis waan soo gelaya ayaa ku qoran amen rabbigu taagan yahay albaabka qalbigaaga u fur Jesus waxaan rabaa inaan ku barto waxaan rabaa ilaa runtii haddaad tahay rabbi Ciise Masiix qalbigayga taabo nolosheeda taabo rabbi waxaan rabaa inaan ku arko rabbi waxaan rabaa inaan culayskayga qaadid rabbiguna culaysku kaa qaadaya example yar waan ku sheegaya maanta haddaad ambulance u yeedhada xanuunsanaysid aad guriga ka furi doontid aad sakaraadaysid dib buu sii laabanaya u gargaraacaya dadka furigood iska noqonaya adaa guriga dhexdeeda ku xanuunsanaya marka rabbiguna saasoo kale waan u gargaraacaya qalbigaaga ka fur xanuunkaagu raba inuu kaa qaado dhibaatadaadu raba inuu kaa qaado jiribaadaadu raba inuu kaa qaado culaysku raba inuu kaa qaado mugdigu raba inuu iftiinka ku bedelo walaaliyo inaad qalbigiina u furtinaya aniga weydiisanayna ku barwaaqoobo magaca sayidka Ciise Masiix ku farxa magaca Ciise Masiix amen ambahay batay Masiixo waan ku ammaanaya Sayyido waan ku ammaanaya amen